faraxsanahay runtii Allah subxaanahu wa tacaala inuu ku siina muuqaalka daawato alxamdulilah leh waxaan mar kale rabaa inaan muuqaalka uga hadlo sida ogsoonyahay dunidan casriga ah ee la joogo waxaa sii badanaya artificial intelligence oo yidhaahdo artificial intelligence waxaa la yidhahdaa waa caqli gacan ku samayska waxaa loo yaqaano taas oo meesha kasii saaraysa shaqooyinka bini'aadamka ee qaban jiray waxaa arkaysaa dad badan oo ku fikraya in ay shaqooyinka shaqeeyaan laakiin dunidu waxay ka fikeraysaa sida loogu maarmaxay shaqaalaha lacag taas beddelkeeda la hormarinayaa waxa loo yaqaano artificial intelligence artificial intelligence waxa weeyaan waa caqli la caqliyey kaas oo la suurtageliyey in shaqooyinka bini'aadamka ay qaban lahayn inaa sida haddana si uga badbaadi kartaa in artificial intelligence shaqada kaa qaado ama aad ku shaqoweyso waxaa badbaadi kartaa inaad xirfad leedahay waxaa jira xirfadooyin xilligan la joogo casrigan la joogo qaali sii noqonaya waa adduunka buu u baahan yahay xirfadahaas haddaad barato Soomaaliya 10 sano ama 5 sano ay soo socoto ilaahay xalalaay si cimriga ku sii noolaato waa isleeyahay waa xirfado aad adiga noloshaada ku horumarto xirfadahaas waxaa ka mid ah xirfado qaali sida inaad barato kale farsamada guryaha oo kale waxaa arkaysaa dhalinyarada noloshaada farsamada oo kale waxaa jirta oo kale farsamooyin teknolojiyadda la xiriira oo kale sida farsamada programming oo kale inaad noqoto programmer waxay kuu suurtagelinaysaa inaad wax badan iyo fikir badan iyo maskax badan ka keento taas waxaa ka wadaa maahan IT bas ku gooni ahaba waxaan ka wadaa xirfad adiga ku gooni yeelo waxaa jira xirfado gaar baabuurta ku hormariyo waxaa jirta dhalinyaro ah oo yaqaana nidaamka samaynta gaariga ku cilado dadkaas oo kale tomorrow xirfadooda ay ku meel marayaan bili ka maalinta kambani gaari sameynayo yimaado iyagaa shaqo ka helayo sababto waxay fahansan yihiin nidaamka gaariga loo sameeyo computerka sida loo isticmaalo xirfadaha computerka way badan yihiin waxaa ka mid ah inaad barato qaabka mobile applicationska loo sameeyo inaad barato qaabka loo sameeyo websites oo taqaaniso inaad barato inaad xirfad yeelato waxay suurtagelinaysaa inaad adiga noqoto muddo aan qofna baryin waxaa la dhahaa shayga keliya ee suurtagelin kara inaan qofna baryin waxay tahay inaad xirfad yeelato sababtoo xirfadda ama skillka qofna uma baahanaysid adaan ku baahanaya tusaaleya haddaan maanta aday takhasuskeedu yahay sida computer loo programmiyo jaamacada kugu baahan iskuulada kugu baahan shirkadaha kugu baahan adigaa shaqo abuuranayo uma baahni xitaa inaad shaqaala noqoto shaqo abuuran kartaa sababtoo ah shaqo waxaa abuuran kartaa inaad wax barto ama inaad ku shaqayso company inaad furto designs inaad furto company programmada sameeyo inaad furto website inaad samaysto website adiga kuu gaar oo commerce ganacsi inaad dhisato waxaas oo marka anigu taas ka fikiraya ayaa waxaa igu soo dhacday inaan sameeyo course loo yaqaano web design ama course barashada website samaynta taas ayaan ku fikiray waxaan ku aqoonta marka inaan sameeyo koorsadaas macnaheedu waa inaad ku yeelato xirfad sida loo sameeyo website-yada adiga ka dhoweyto saaxiibadaada ama bulshada kale u sameynaya ama adiga mid ku gaara samaysanaysa course ayaan diyaariyey oo loogu talagalay website samaynta koorsadaas marka waxaa lagu talagalay inay socoto muddo 2 bilood qof kastaa ka qayb qaadan karo waa xirfad waa skill awood kuu siinaysa inaad adiga youtube ku shaqaysato xirfaddan website samaynta tusaale maanta kambaniga haddaan maanta u sameynaya website oo kale kambanigaas lacagta ugu yara laga qaadanayo madalida lacag lama qaadin waa 800 lacag lama qaadin karo 800 laakiin markii toos wax weyn la sameynayo tusaale kale website hospital ah website nambarada laga goosto kale website e-commerce ah oo lagu ganacsado kale cafeteria oo kale waxaasoo dhan ismay lacag maahay marka waxaan ku dhiirigelinayaa adiga inaad xirfad yeelato koorsada ayaan bilaabay waan shaaciyey weliba bilaaban waxaan rajeynayaa inaan bilaabo October dad badan ayaa soo diiwaangeliyay adiga hadda muuqaalkaan daawanaya waad ka faa'iidaysan kartaa koorsadaas koorsada qofkii u baahan inuu iska diiwaangeliya xog badan inuu ka helo muuqaalkan qaybtiisa commentiga ayaa idiin soo raaciyey waad ka mahadsantiin daawashada muuqaalkan waxaan kuu rajeynayaa wacan waxaan ku leeyahay xirfad yeelo si aadan berito dadku baryin